wiilka wuxuu caawinayay walaashiis yar si ay u helaan muraayadeedii luntay si kama ah ayuu u ogaaday in saxanka birta ah ee uu dul taagnaa uu u yeerayo si madhan isagoo yaaban ayuu si tartiib ah u qaaday saxanka wuxuu moodayay inuu helay god qarsoon oo hanti ka buuxdo balse waxa uu arkay waxay ahayd cag aan dhaqaaqayn mikeel aad ayuu uga argagaxay aragtidaas si degdeg ah ayuu mar kale u daboolay godkii kadibna cabsi ayuu ku cararay markii uu guriga ku soo noqday isaga iyo walaashiis waxay la yaabeen inay arkaan gaarigii aabbahood oo yaalla guriga hortiisa labadii carruur ah si farxad leh ayay gudaha ugu ordeen aabbahood badanaa wuu maqnaan jiray shaqo darteed oo marar dhif ah ayuu soo laaban jiray markan xitaa wuxuu u keenay hadiyado intii cashada lagu jiray walaalaha waxay isku qabsadeen yaa u tegaya inuu khamri u soo iibiyo aabbahood ayaa fikrad keenay inay qori tuur sameeyaan si loo go'aamiyo qofka tegaya ugu dambayn aabbaha laftiisa ayaa qaatay qoryihii ugu gaabnaa sababtii uu maalintaas hore u arkay darteed mikeel habeenkii ma seexan karin wuxuu si joogto ah uga fikirayay qofka godka ku jira inuu nool yahay iyo inuu dhintay maalintii xigtay mijel ma uusan iska celin karin xiisaha wuxuu ku noqday godkiisii uu baaro isagoo istaagan afka godka ayuu neef dheer qaatay si uu naftiisa u dejiyo kadib si tartiib ah ayuu mar kale u qaaday saxankii birta ahaa agtii weli way taalay wax dhaqdhaqaaq ahna ma lahayn mikeel si taxadar leh ayuu dhagax yar ugu tuuray godka balse wax jawaab ah ma jirin markuu dhagax kale qaadanayay si yaab leh ayay cagtii u baabaday xiisihiisa darteed mikeel wuu foorarsaday oo gudaha ayuu eegay isla markiiba wiil dhuuban oo cabsi leh ayaa hortiisa ka soo muuqday mijel qaylo ayuu la booday cabsi darteed wuxuu ku booday baaskiilkiisii wuxuuna ku orday xawaare sare maadaama uu aad u walwalsanaa jidka ma uusan iska fiirin shil ayuuna galay markii uu miyirsaday jidkiisa waxaa daboolay quraanyo silsiladii baaskiilkiisuna way goday wuxuu ku qasbanaaday inuu riixo baaskiilka ilaa guriga maadaama uu soo daahay aabbihiis ayaa canaantay wuxuu uga digay haddii uu sidan ku sii socdo inuusanba guriga imaan mikeel wuu ka murugooday canaanta balse ma uusan garanayn in aabbihiis ka walwalsanaa wuxuu keligiis fadhiistay geed dushiisa isagoo ka fikiraya godka qarsoon xitaa xanaaq dartii wuxuu walaashiis u sheegay inuusan casho u iman doonin laakiin markuu maqlay in hooyadiis tugtay keeg uu jecel yahay wuu iska celin waayey wuxuu qabtay gacanta walaashiis waxayna guriga ugu soo laabteen iftiinka qorax dhaca subaxdii xigtay mikeel wuu soo kacay aabbihiis wuxuu u ekaa mid hilmaamay murankii shalay sida caadiga ah wuxuu wiilkiisa ka codsaday dhunkasho quraac kadib mikeel wuxuu la ciyaaray saaxiibadiis balse maskaxdiisa kama bixin godkii qarsoonaa isagoo iska indhatiraya saaxiibadiis oo u yeeraya ayuu mar kale ku noqday meeshaas cabsi iyo xiiso isku darsan yihiin markan ma uusan ku foorarin gudaha godka halkii wuxuu istaagay korkiisa wuxuuna weydiiyey haddii wiilka hoos jooga uu weli nool yahay muddo kadib cod daciif ah ayaa ka soo yeeray gudaha mikeel wuxuu u muuqday inuu fahmay waxa wiilkaasi u baahan yahay isla markiiba wuxuu u tegay guri u dhow si uu biyo u keeno xitaa si taxadar leh ayuu biyaha u dhadhamiyey marka hore kadib wuxuu ku xiray dhalada xarig si tartiib ahna hoos ugu dejiyey godka wiilkii wuu soo gurguurtay wuxuuna si degdeg ah u cabbay biyihii markuu cabbay wuxuu sheegay inuu aad u gaajaysan yahay mikeel ma uusan haysan wax cunto ah sidaas darteed wuxuu ballan qaaday inuu beri cunto keeni doono mikeel wuxuu weydiiyey haddii uu isaguna yahay ilmo la mid ah balse wiilka godka ku jira wax jawaab ah ma uusan bixin maalintii xigtay mikeel wuxuu dukaanka ka iibsaday rooti kadib wuxuu ku dhaqaaqay baaskiilkiisa isagoo u socda godka intii uu jidka ku jiray wuxuu arkay gaari ku soo socda darawalku wuxuu ahaa felis oo ah walaalka weyn ee saaxiibkiiska mikeel si xawli ah ayuu u waday baaskiilka ka hor inta uusan felis arkin wuxuu ku dhuuntay cawska ma uusan rabin in qofna ogaado sirtiisa isla markaas wuxuu isweydiiyey sababta gaarigaas meesha uu joogay mikeel ugu dambayn wuxuu gaarsiiyey rootigii wiilka wuxuu sidoo kale weydiiyey haddii felis uu ku xiray godka balse wiilka keliya wuxuu cunayay rootiga isagoo aan wax jawaab ah bixin markuu kala bar cunay si tartiib ah ayuu dib ugu noqday mugdiga si uusan raad uga tegin mikeel wuxuu wiilka ka codsaday inuu rootiga dib ugu celiyo dambiisha balse wiilka muddo dheer wax jawaab ah ma bixin iyadoo aan xal kale jirin mikeel wuxuu iska baaray geesinimo wuxuuna hoos ugu tegay godka kadib markuu soo qaaday rootigii dhulka yaalay wuxuu isku dayay inuu la hadlo wiilka balse weli wax jawaab ah ma jirin isla markii mijel uu isku dayay inuu baxo wiilkii ayaa si lama filaan ah u hadlay